waxay ka dhigan tahay inaad dhagool tahay gaar ahaan marka aad tahay qof akhriya dhaqdhaqaaqa dibnaha sidaas darteed dad badan ma ogaanayaan inaad dhagalaadahay tani waa sheekada Xuseen Sheekh oo dhagaha la waa 35 sano jir ay u joogaan 9 caruur ah kana shaqaysta farsamada mootooyinka wuxuuna si maalinle ah u yimaadaa geerashkan oo uu isagu leeyahay si uu ugu filnaado nolosha qoyskiisa isagoo qabanaya hawl aan lur yarayn wuxuu ku dhashay kuna koray dhagoolnimo inkasta oo uusan marna ka raja dhigin nolosha inuu ka gaari karo isku filnaan haddana wuxuu istusinayaa waxa isagu ay uga macno tahay dhagoolnimo inaysan cidna fahmi karin ugu badnaan $25 ayaan ka helaa shaqadan aan iminka gacanta kula jiro alxamdulillah shaqadan dhib kuma qabo waan ku faraxsanahay joogisteeda iyo ka shaqaynteeda intaba waxaan dhalay 9 caruur ah guriga ayay ii joogaan inkasta oo uu dareemayo baahida maqal haddana habka uu la xiriiro macaamiishiisa waxay u tahay mid sahlan wuxuuna ii sheegay in asxaabtiisa iyo qoyskiisuba ay iloobaan in uu dhagool yahay maadaama uu la sameeyo isdhexgal joogto ah waatan aniga iyo isaga markan u socono hoygiisa si aan ula hadalno afadiisa oo kaalin mugle ku leh in ninkani hankiisu gaaro meel sare marka maasha Allah maadaama hada oo dhagalayahay dhagalaantiis anaka dhib kuma qabno wax alla oo daaxanaaqsanahay ilmaha xagooda wax walba uu ka kaafiyaa ya qof maanta wuxuu nagu roon yahay qof dhaga leh oo nagu roon yahay caruurta waxa waaye 9 caruur oo dhalay 5 kamid ah roorona hada iskool dhigato 9 kood 5tooda iskoolka waxay dhigtaan Rajab min $10 ay ku dhigtaan asaan ka bixiyo shaqadiisa oo nadiif ah iyo sida dadka uu u ixtiraamo oo lagu sifeeyay mid akhlaaq wanaagsan waxay dhaxal siisay in bulsho badan oo ah kuwa mootooyinka ka haysta ay ku soo hirtaan geerashkan baashan daboolan asaga wuxuu ugu soo baxay markii hore yaraantiisu ku soo baxay wax kale ilaa ma baran kareenin sida oo markaas wuxuu baranaya bir ajir nooc oo ku soo barbaaray hadda waa ka ku dhex jiro wuxuu ugu baahan yahay mal qof kale birta marka u keento bartaas oo taakeena shanqarta oo maqla meesha ka jabanta oo dareema wixii ka maqan oo ku diraa hadda ka haysto kuugu xiraa waxa u maleenaa in marka qalbiga oo kala socdo si kasta oo uu leeyahay Xuseen Sheekh haddana marna taasi kama aanay hor istaagin inuu shaqaysto oo uu dabarto nolol maalmeedka reerkiisa waxaana si maalinle ah garaashkan oo isagu milkiil leeyahay uu ugu shaqaystaa qoyskiisa oo maalintii ka helo